بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد إلهي baa mahadda iskale oon ku shukrinaynaa waxa weeye afhayeenkii baraha bulshada ee beelweynta habar gidir weeye waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo kulanka maanta ay ku dhex maray magaalada muqdisho ergada habar gidir ee uu hogaaminayo imaamka habar gidir cabdullaahi khaliif rooble iyo maaragtay xildhibaan dhaman cad iyo xildhibaan Ilyaas iyo xildhibaan dhaman cad oo ka mid ah xildhibaanada beelweynta habar gidir ee maaragtay dowladda federaalka ah xildhibaanada ku metela ka mid ah iyo imaam cabdullaahi khaliif rooble oo maantay kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kulankaas oo ku saabsanaa marxaladaha iyo xiisadaha ka taagan haanta dheer iyadoo wax badan la isla jeexjeexay berrina dib la isugu soo laaban doono ra'iisul wasaaruhuna uu ku baaqay in maaragtay uu kulan levelkiisu sareeyo oo dhex mara habar gidir iyo maaragtay iyo asaga uu dalbaday berri iyo wixii ka dambeeyana la filayo kulan ballaaran oo beesha habar gidir iyo dhex mari doona ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa habar gidir dowladdiid maahan qaranka Soomaaliya tacab badan baa ka galay laakiin waxay diidaneed dhulboobka iyo daandaansiga iyo barakicinta iyo bartilmaameedka dowladda federaalka ay bartilmaameedsanaysay waxaan rajaynayaa in ra'iisul wasaaruhu uu sixi doono wixii qaldamay habar gidir iyo qaranka Soomaaliyeedna isfahmi doonaan kulankaasna annagu haddaan nahay beesha habar gidir waa soo dhaweynaynaa waxaana arkaynaa wixii ka soo baxa khayr ayaana rajaynaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.